السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدة الصوماليات وأنا إذن سلام يا ميل على لميشة الدنيا كجوكتان إلهنا وحن كبريا أنا أسكو عافيماد قبطان ولا ليال maanta mowduuca aan ka hadlayo waa mowduucan huba Soomaali inuu kicin doono iguna soo jeedin doono dad badan laakiin mar walba waxaa muhiim ah inaad runta sheegto maxaa yeelay runta Ilaahay baa kugu jecel deehana aad dareenkaaga iyo saad wax u aragto aad oga qaada shicibkaaga waxa weeye dal markii lala wareegayo marka horeeto laba wax waa la fiiriyaa waxaa la fiiriyaa dalka la isku dayo in lala wareego dadkiisa dabeecadooda iyo quwadooda inta ay la eg tahay macnaha dadkaasi ma yihiin dad dagaaltami yaqaana oo dad halyeeya mise waa dad iska jilicsan oo aan dagaalami aqoonin dabeecadooda dad ma yihiin dabeecad yaab leh oo wax walba fahmi kara iyo ujeedada laga leeyahay dhanka maskaxiyan aad maaragtay u aqli badan hadday dadku aysan ahayn dad maaragtay dagaalami yaqaana waxaa lagula wareegaa xoog iyo xeel military haddayse dadka yihiin dad dagaaltami karo waxaa la isku dayaa dalka intaan lala wareegin in dadka lala wareego waxaa lagula wareegaa dadkaas dhexdooda waxaa laga dhex shidaa dab markii ay daalaan ayaa lala wareegaa dadka waxaana lala wareegaa dadkaas si dalka loola wareego Soomaaliya taas maanta ayaa ka socoto waa dadka daali oo la wareeg markaasna dalkooda kula wareeg ayaga howsha Turki ee maanta Soomaaliya ka hayso waa taas maxaa yeelay dadku Soomaalida ah qofka bini'aadanka markuu daalo advantage badan baa laga qaadan karaa Soomaali way daashay markaas ka dib waxa la abuuray oo Soomaaliya laga dhex abuuray ficil aysan aqoon taasoo cabsi ku noqotay shicibka iyo Soomaaliya oo argagax waa isqarxin marka waxa arkaysaa nasiib darada maanta jirta waxa ay tahay muwaadiniinta Soomaaliyeed in ay ka jecel yihiin madaxweynahooda sharafta leh midka Turki madaxweynaha Turki ayaa laga jecel yahay madaxweynaheena ka sheekay waxaad arkaysaa madaxweynaha Turkiga dhunkashada uu dhunkanayo caruurteena waxay isku dhaqaajin dhaxalkooda la rabaa lagu qasbay inuu dhunkado adigu waxa laga la wareegay ee Turkiga ballan qaaday iskuulina loo dhisi doono laakiin macallimiinta waxa ka ah macallimiinta Turki airport ayaana loo dhisay security-ga waxa haya Turki tagada ayaa la wareegay alaansha every little thing oo wada uu ku dhaqaaqo waa laga haystaa taasoo ku gelin doonta booska ah second reason dhibaatada ugu weyn oo dadkayga haysato waxa weeye oo looga faa'iideysanayo waliba waa dhanka aqoonta majority dadkeena Soomaaliyeed ma ahan dad wax bartay hada dhunkashadaas kaliya ay u jeedaan iyo boqoshada madaxweynaha uu soo booqday waftigii la socday reportyada ay naga gudbiyeen adduunka nooga gudbiyeen kombiyuutarada noo galiyeen ma ogtahay hadallada qaarkood baa wuxuu ka mid ahaa waxa ay ku nool yihiin jiingado iyo meelooyin dhintay haddaan anagu aan nahay bini'aadan dadkaas maxay yihiin danyarana nacla idinkii waardikiin astaghfirullah laakiin ilaahay idinku dhaarshay waxyaalaha qaarkood markii laga sheego dhiiga kugu karaya Soomaa waa liiditaan caadi ah aad baan loo liidayaa reportka waxa ahaa ku jiray waxa kaliya oo ka muuqda waxa weeye isbitaalka aan u dhisnay iyo laboorka aan u dhisnay macnaha waxa weeye dhaqdhaqaaq iyo nolol kale dadkaas ma lahan aan anagu ahayn marka ay Turkiga madaxweynaha Turkiga uu ballan qaadayo inay Muqdisho u ekaato Istanbul kama rabo inuu i ballan qaado midaas waxa aan rabaa inuu i ballan qaado Muqdisho inuu ku soo celiyo sidii ahaan jirtay because cidna nagama qurxanayn anaga cidna nagama dal qurxanayn Afrika Muqdisho markay dhisneed xamar dalxiiska loo imaanay Istanbul cidna ma aqoon marka uu ku leeyahay Istanbul ayaan u arkaysiinayaa ujeedada waa in ay noqotaa the Istanbul of Africa oo magaci Muqdisho meeshaas uu ku aasmaa dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inay foojignaadaan ninka Turkiga ma dhahay dhulka ay dhisan laakiin waxaan u diidayaa inuu dhaxlo anoo nool qaxooti qurba waan ku ahay laakiin ma rabo inaan u noolaado aan wadankayga ku noolaado sida qof qaxootiye xanuun waxa igu filan wadankan aan qaxooti ku ahay laakiin dhimasho ayaan ka xigaa inaan dalkayga qaxooti ku noqdo Soomaaliya kaca oo ka dhidiya waxyaalaha socda Turki
dalkayga waa inay ku noqotaa marti weliba marti edab leh. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.